balan kugu soo celiyay bawe ma adiga kalkaalisadii madaxweynaha daawad u keenaysaa tahay mise daniya kuu soo warrama adiga ilaa dani kaliya imaaraad isku arkeen caafimaadka madaxweynaha loo dusaba sida qasa waxa rabay siyaasadda iyo caafimaadka in la kala saaro qaybta koowaad ee barnaamijka maadaama raaciye caamkii la qalday bal xaalka madaxweynaha intaan ka ogahay maba badnee inaan idinla wadaagaan rabaa caawa oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan maadaama la qalday muuqaalkan aad u sii share gareysaan oo aad wada gaarsiisaan ma ninka abiil la hadlaya bur laga qalay adduunya qaybta labaad ee barnaamijkana habar jeclo waa odaysay awal hadaa taqaaniin garaad jaamac garaad cali iyo muuse bixiyo isku hanjabaya oo bahasha qabiil iyo maamul ay ahayd isaaq hadda filinka waa fahmay muuse bixi waa jabtay meel laga firiisan laaniyo bahashan huwan ay u yaqaanaan muta huwan baa nahaysa huwantii aan gooja hadda ku haysanay baa hadda buuq dharkeed iyo yeele iyo sheeko kale iyo beli cumar iyo meelo cusbaan la baran muta anaga ma nimankana nahaysta abar jeclo suldaankeedii maanta wuxuu yiri nimanka dhulbahante qudbad dheer uu maanta jeediyay inta buuq dharkeen yimid soolarradii qaatay qaatay boobeeladii qaatay gawaaridii qaatay tooshaskii batariyada qaatay ciidan qaran la yiraa tuuto u xiran mayno waa habar jeclo iyo jaamac siyaad waay waliba ogow jaamac siyaad iyo habar jeclo dagaalkoodu waa bilowga qaatumo iyo Somaliland ama gooja cadda heesla tagaan ama burca heesla tagaan midda nacaaw iga qora qaybta labaad ee barnaamijka ku qaada dhigi doonaa nin Xamse Cabdi Barre la yiraa ayaan rabaa caawa fariintan inaad iga gaarsiisaan aniga bulshada siyaasaddaada inta qabto gudaha u galo bulsho ma tusaay laakiin baasha kor ka goosanayna ma xasuusataan inuu ka hadlo mar Xamaas iyo inaysan argagixiso ahayn waxana qofkii ugu horeeyay oo yiri odaga dibadda cadaadis baa uga imaan doona kadib baraha bulshada maxaa ku aragteen mooshin xildhibaana mooshin ka wada imaaraadka waxaas waa laga daray niman magaawiira oo xalna fadhiya jira oo taagan Xamse Cabdi Barre telefoon inta laga wacaa liir oday ama xilkaanaad weynaysaa ama raali gelin baa bixinaysaa qawaaniinta caalamiga marka lagu yiraahdo waa kan Mareykanka uu haysto waay Xamaas argagixisay ka tahay Mareykanka agtiis waana qawaaniinta caalamiga dhan Mareykan waay kaasaad ku xad gudubtay ama raali gelin ama xilka ka tagaysaa macnaha anigu waxaan leeyahay Xamsow adoo raali gelin wado ummadan ha hor imaan Soomaaliya liiraa inaad xukunka ka tagto oo bari lagu abaalgudo madaxweyne in laga dhigo ayaa ka qurux badan wallahi talada boos dhigeyso waa ninka ugu aqli yar Soomaaliya oo dhan Xamsow qaybta ugu dambaysa barnaamijkan ka dhiga doonaaye aan u soo laabto nin reer waxaa jira mucaaradnimadii ka gudbay oo haddana habaar maraya madaxweynaha imaaraadka jooga maalmihii ugu dambeeyay qaliin waxaa jiray oo garabka uu ka maray xidid laga qalay wuxuuna ula mid yahay aniga adiga iyo ummadda Soomaaliyeed markay geeri timaado markay xidid la qalaa timaado iyo markay jira iska timaado madaxweynuhu ummaddu kala mid yahay Soomaaliyeed waxaa la rabaa in la kala saaro siyaasadda qofka aad ku haysato iyo habaarka iyo caafimaadkiisa in la kala saaro waay madaxweynaha markaas aad arkayseen Abiy Ahmed oo iskala kulmaanin operation weyn oo halis ah galay shirna kama qayb galo isbitaal iska jiif laha reer baa waxay taagan yihiin gacantan la duubay garabkan laga qalay oo la duubaba waaba Benguuro odaga kansar baa laga qalay buraa laga qalay habaar hadii kula gashay baasha siyaasadda la yiraahdo waa fashilanta ana runta ku sheegay hadii habaar ba ay kula gashay waad carootay nin caroodane siyaasad waxba kama yaqaan mana u bilaabnaba hadaa runta ka hadlo warmay waxaan ku leeyahay intaad habaar iska dhaaftaan duqaan waxba idin kala dhaxeeyo wax idin kala dhaxeeyo ku xisaabtama ma diideen waa fashilanteena habaartama habaar wax lagu kari waa mooyir daari cali soo habaar lagu kari waa Xasan Sheekh Maxamuud ina u duceysaan oo dalkan u xoreynayaa mid tiimka madaxweynaha waa ku qaldiyin in timaha inta u daayaan dhuusamareeb fadhiisiyaan ka dhigaan nin dagaalamayo iska mashquul ma u baahan Xasan Sheekh Maxamuud waxaas tiimka madaxweynaha madaxtooyada wallahi babliga idinkaga sheegay Xasan Sheekh Maxamuud in victim laga dhigo timo loo daayay ya habaar warkiisa ka bax kaase uma baahan Xasan kii ka horeeyay Maka al-Mukarrama lama markin haddana Xasan galcad iyo waxa la joogaa coos weyn ciidanka ka dagaalamayaan muxuu uga baahan yahay in timo loo daayay ii sheegay in sawir noocaas bulshada inta la tuso uma baahna geesigu waa jabaa waa guuleystaa shaqadu ku jiro nin Soomaali oo samayn kara ma jiro aafada uu la dagaalayo qawaariistana intaasaaba guul uga filanba taas waa lagu dhaliili karaa maxaa tin lagu deena waa sax laakiin buraa laga qala iyo hebelow saan waaye iyo habaar iyo waxaad moodaa fashil mucaaradku inay wax kala waayeen oo caafimaadka madaxweynaha ay falanqeynayaan sida dhakhtar Hindiyaba waaya
intaas bulshada Soomaaliyeed maadaama la qalday madaxweynuhu waa caafimaad qabaa waa ninkaas Abiy Ahmed la kulmaaya dagaalkiibu haddana phase 2 iyo phase 1 oo dhameystirkiisa u soo laaban rabaa odagan boodaya waxba laga matari karee waxa idin kala dhaxeeyo uun ku haysta intaas idin leeyahay geeri iyo nolol uma doorana u siman maxalku i daawanaya war qodobkan halkan ii dhig waa habaaro ah qodobkan qurux badan oo la sii wadi kara maba ahane habar jeclo suldaankeedii maanta waa codeeyay sharci qeyrba markaan habar jeclo maqasho أنا رنت كوش شيء إساق عن هويان بدنا يقول حرني دارات كان ما يقاناني يرحم وين يدرت أنت هذا كلام ورنا ما يوها برجع على هداد مقشن نجلب كأستو جيري إن الله يقان إساق لم بوها برجع لبا لكن بريج يورا على النقطة بريج يورا الدجال كوش يقول حي لمن هو يقانان إساقه أو حرت اللي يرا يمامل كموسبيه حد إساق وقوة ريرين لأن لمن كان مركي جولستين ما ينجيم على العيار إساقي وحال اللي هبا ما قلي كرتين دجالك سيد جرمال كمارت واجي أو هيلر اللي جنبدي سيدان ما سمين كرت فرانكفورت سيدان ما سمين كرت هامبروغ سيدان ما دحوش حلقات قميسي هبرجع على دجالك مقلي كرتان ور هبرجع على سلطان كمان توحيري ور أنا كم مسبح يا عيدا كان أقريه هنا مسبح يعني كعدنا أنا وأنا رول موت وادان دانسي مركل جنبدي يقول استو وينو دوبيا رول بانت واد دوبي هرتواد دوبي إساق واصبري وسوق هذه وزع صابته وحلا كان مركل nimankii harti aha ama jaamac siyaad biskane harti aakal ku jiray jaamac siyaad niman la yiraahdo kibirsan baad jira boqdar keen inta tageen bay waxay soo qaateen sida isaaqu sheegeen solar hadhihin taleefanadii hadhihin wixii dhan soo gurbisteen macna matooradii ceelasha kulli habar jeclo marka idii difaaci lahaydna darees ciidan ay xirantay ilaa shalay ciidanka Soomaaliland ay ku kala jabaan xoogba ee ay dhahaan qaranna marabno muuse bixina marabno isaaqna marabno ورنا هبرج على ودقال منا سلطان كمرك أرنتها سوحوجي وعدا أول واجي هراء أنا هدان هبرج على هنمان كوانا الله اللي نقرأ دودي أنا نواد دقي سني حدا ما مطار إيا صالر مرايان مسبح يعني شقة كلهن سومالنا شقة كلهن دقال حدو نوب بالله سلطان كو هذي أما دقال حريقنا إيجا قرا هولير معها أسكري معها سلطان كو هبرج على أن هدي أنت لودو كده هديله ويرأسك ودكنا يعني marka dagaalkan hadaan gudaha u sii galo jaamac siyaad iyo habar jeclo oo isdhalay oo isla degan buu ka bilaaban doonaa wuxuu ku dhamaan doonaa firdhiyii musabixi ama ha lagu biyo shubto gooja cadde ama garow ha lagu biyo shubtay ama burca iyo hargeysa ha lagu biyo shubtay aalmiitadan habar jeclo iyo jaamac siyaad wallahi wa billaah wa tallahi wa billaah intii wax fahmi kartaa intuu inta la gubo dadkii inta loo tago la gubo reerka kale maxay sameyn karaan ciyaartan waa bilaabay أنا إيجا قرنت سياسة واحد كان وياي سلطانك أو هالنا مركز عن كوجو سعليو مسبح يو هاللي وكجا غير بدنته هبرجع له غير كستنا ساس وايد دي وعرب قيبتها وقدم بس برنامج كيجينا نقصه أفجروا رئيس الوزراء الصومالية مرة بعد نكون علينا يا مقال كان إيجا شير جري وسب كيسو قدرة أنا جو واحد بدنا أوجه واحد بدنا برشة لما وداعو واحد بدنا وعيريا موشين هرت مجروك بشارة استوى اللي بان هذا كل ديرن كراو إنه بلاج ليست كلو سقوا حماس كسو هرجيدو حمسي عبد برموشن كوضو هرت مجرو دارون تيدي شيء قطرت النوع عسواجرتي أو إمارات لصوت أحمر تبرع في عن هاد لكن اللي بقى ندي يكون مديرن كران إن أنت ما استجعنا حماس وتاجر كريدت كودا كده بنا الصومال تحديد وسجل الله هاين لعقتو الإمارات والديار لكن قدب قدر نجرة باشان مغاوير معلمين وين حلا نفرس odaga qadka taleefanka habeenkan lagu jiro anigu waa ogahay ma ku sii dheeraanayo oday waxa la yiri isfarsamay oo raali gelin farsamaysan bixi ana xukunka isaga tag or maxaa dhacay qawaaniinta caalamiga Mareykanka qawaaniinta caalamiga UN-ka iyo Mareykanka iyo waa isku mid waa la socotaan oo taas idin sharaxi maayo qawaaniinta caalamiga maxaa ku taala Xamaas waa argagixis wax kaliya oo diidan waa China iyo Ruushka iyo dadka isdabarayay kaligood oo shaqo tagay laakiin adduunka hal xabo waay European Union waxa Mareykan qabay aaminsan tahay UN waxa Mareykan qabo aaminsan tahay waa isku mid taas ku dheeraan maayo qawaaniinta ku dheeshalayro oo aad garab martay niyo laba mid waay markay saas leeyihiin ogaada ra'iisul wasaare in Mareykanka ama UN-ka ama Midowga Yurub ay tuuraan wax weyn ma aha farmaajo ya tuur ma taqaana Museveni adala socotaan شريف سكينة توري شريف حسن شيخ شريف تورو حاسس كشيخ الصومالي واي مسافني يا عوني UN أو صوماليا بيشا يا مريكان يمدقوا يوروب
haddaad jidkooda ka leexatana cawaaqib xumo waa iman kartaa caqliga saliimkaa sheegaya odayga marka waxaa la leeyahay nin raaligelin bixi si aad xilkaada u sii joogto ama xukunka ka deg yaa nin nagu afkaara imaanaya bilaash kuuma biilno ciidanka kuuma biilno miisaaniyadda dowladda uma kabno yaa diin cafina naga rabtaa oryaa waxaan leeyahay marka intaas ka badan ma ku sii dheeraa ra'iisul wasaaraha xogta waa ammaano laakiin koraa laga goosanaa baash xamse cabdi barre waxaan rabaa inaad iga gaarsiisaan xamsow hal mid aan kaa codsado la jecel badan ay ka jirta nin wadaada ahlu diin ah ahlu taqwa ah dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa daacad u ataarto bulshada Soomaaliyeed maybe aragtideeda inaysan mid dheer ahayn laakiin Soomaali way iga taqaano nin iga weyn oo iga khibrad badan tahay Soomaali wallahi suma wallahi hala hor imaanin in adeero hala hor imaan adoo raali gelin bixinaa wax kale ka bixi raali gelin laakiin xamaasa ka bixin hayeelin waxaa dhaanta inaad xukunka ka degto si bari ado intaan ka karaamo badan oo ka sii sharaf badan macaan madaxweynaha hadda ku xushay ka sii qiimo badan baad imaan doontaa ilaa xasan sheekh doorasho qof iyo cod iyo laba xisbi soo ma dhihin war lafa hadii la ogaadina taa cid Soomaali ka laan dheeraysan ma jirto karaamana waa wada taay ha is karaama seejin adiga oo is hisbah dilin xil Soomaa kan mid ka qiimo badan waa madaxweyne kaas lagu geynaa laakiin Soomaaliya aqaana in adeero hala hor imaan adoo raali gelin wada waliba adoo xamaas ka wada xamsu hala hor imaan antaas waa codsaanay odayga bareeshar noocaas saaran bal sidoo uga dabaasho aan aragno igana gaarsiiyo fariintaas aniguna waa tahay xukuumaddiisa qalad iyo saxba waa wataa aniga marba hadduu geesiya qofka waa la ximbaartaa qaladaad waa ka dhacaa waa bini aadan laakiin intuu saxaya ka badan dhiiranaanta uu sameeyaan ku bogaadinaynaa walaalo raaligelin naga ilaali qodobkan ugu dambeeya waxaa la raaligelin quluubta ummadda Soomaalida muslimiinta wallahi dhaawacaysaa iska daa maalintaasaana karaamo iyo sharaf iyo xil iyo mansab wallahi kugu dambayso geesi noqo ku dhiiro berina haddii xukunka lagaa tuuro waa lagaa tuuri karaaye adoo intaan ka karaamo badan aan ku sharfayna ku boqorayna madaxweyne iska dhaafay boqorka ummadda Soomaaliya laga dhigaya dhiiranaw ku taagnaaw qodobkaas nabaday bye bye intaasaan barnaamijkayga habeenimo ku soo gabagabeynaya habar jeclaa yaabtay bye bye